bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamadii maanta gaaray magaalada Luuq oo loo diiday in ay gudaha u galaan degmada Luuq. Sidoo kale waxaan xogta ku haynaa in ciidanka Itoobiya ee jooga qaybo ka mid ah gobolka Gedo ay si cad u diideen in ciidankaas ay fariisimo ka sameystaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa sababta Itoobiya go'aankaas ay u gaartay iyo guud ahaan xogihii ugu dambeeyay ee ciidamadii taabacsanaa lafta gareen ee maanta isku dayay in ay tagaan degmada Luuq halkaana loo diiday in ay gudaha u galaan. Waxaana haatan ay ku sugan yihiin deegaanka Yurkud oo u dhaxeeya Baydhabo iyo sidoo kale Luuq ama aan dhahnaba deegaanka Awdiilne inta u dhaxeyso degmada Luuq. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa ninkii Cabdirashiid Janan ahaa oo maanta u khudbeeyay ciidamo ku sugan magaalada Baradxaawo gobolka Gedo. xaaladiisa waa ay circiraysaa Jubbaland iyo dowladda federaalka dhaqdhaqaaqyo ay halkaa ka wadaan. faahfaahinta ayaan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa inta warbixinteena aynu ku guda jirno daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markan galka seefta kala baxay waxa uuna ku dhawaaqay go'aano waaweyn oo aad u culus wuxuuna sheegay in ay tallaabo degdeg ah ay qaadi doonaan. haddaba guud ahaan xogihii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa. mucaaradka Muqdisho abaabulka ay wadaan kama marnaan doonto. intana guda gelin marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like gare sidoo kalena sii share gare si dad badan xogteena ay u gaarto. waxgaag ciidamadii ka ambabaxay maanta deegaanka Awdiinle ee gaaray degmada Luuq duleedkeeda waxaan xogta ku haynaa in ciidamadaas loo diiday inay gudaha u galaan degmada Luuq. ciidamadan waxa ay taabacsan yihiin lafta gareen madaxweynihii xoogga xukunka looga tuuray ee haatan dibad joogga ah ee Nairobi ku sugan. hogaamiyahaas ay taageersan yihiin sida sheegeen. hadda marka ciidamadan maadaama deegaanka Awdiinle looga daba tagay oo ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi ka saareen waxay haddeertaan door bidayaan in gobolka Gedo ay ku noolaadaan oo halkaas gabaad ay ka dhigtaan. inkastoo dowladda federaalka ay ku raad joogto oo aysan ka harin danjiraha Soomaaliya Tanzania u fadhiyo ee ka soo jeeda koonfur galbeed qaybna ka ahaa howlgalkii lafta garan looga saaray Baydhabo waxa uu sheegay in hubka iyo saanada ciidan ee laga gaday canshuurta shacabka koonfur galbeed inaan gobolka Gedo lagu dhaxaysan karin. hadalkaas oo u muuqday inuu yahay mid hanjabaad ah isla markaana loo dirayo ciidamada iyo guud ahaan saraakiisha taabacsan lafta gareen ee haatan gobolka Gedo u galay. xaaladdu hadda meel adag bay maraysaa xitaa gobolka Gedo la sagama hari doona ayaa la leeyahay. dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maanta waxa ay xabsi guri ay ka dhigtay gudoomiyihii magaalada Baydhabo Cabdullaahi Watiin oo ay isku jifa yihiin lafta gareen. ninkan markii hore lafta gareen ayuu raacay kadib wada hadal dhexmaray isaga iyo xubnihii dowladda ee ku sugnaa magaalada Baydhabo waxaa markaasi suurto gashay in dib shaqadiisa loogu soo celiyo. laakiin hadda sheekadu way isbedeshay oo waa laga shakiyay waxaana markaasi la leeyahay ninka kaliya ee nagu dhex jiro ciidamadaas hubka ay la goosteen ninka fududeeyay waa isaga. qorshaha ay kala hayeen waxay ahayd in uu qayb ka qaato sidii ciidamadaas iyo hubkoodaba dowladda federaalka loogu soo gacan gelin lahaa. qorshihii waxba kamuuna qaban waxbana ugama suurtagelin. dowladda federaalka marka iyadoo ka shakisan Cabdullaahi Watiin ilaaladii iyo hubkiisiiba dhammaan way ka qaaday waxaana ugu talagashay in markaasi xabsi guri ay uga dhigto gudaha magaalada Baydhabo. xogaha inuu helnada waxa ay tilmaamayaan in ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Watiin haatan uu ku sugan yahay gurigiisa. ilaalada haatan ammaankiisa sugaysana ay yihiin ilaalo gaar ah oo dowladda federaalka ay u dirtay. ciidamadii isaga amnigiisa sugayna laga kaxeeyay hubkiina laga qaaday. dhammaan arrimahan oo dhan waxay imaanayaan xilli magaalada Baydhabo dhawaanahan ay ka dhaceen dilal qorsheysan
ciidamadan hadda gobolka Gado u cararay maalin ka hor waxay ka hanjabayeen duulaadka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka Awdiinle waxayna sheegayeen in ay duulaan ku yihiin magaalada Baydhabo wax doorashada dowladda federaalka halkaas aysan ka qaban karin haddii aan halka uga imaano dhinaca ciidamadan taabacsan lafta gareen ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Gadana ay si cad ugu diideen inay ku sugnaadaan gobolka Gado waxay sheegeen in qalalaase amni ay ka shaqeynayaan nimankan ama deegaanka khalkhal amni ama khatar ay ku yihiin sidaas darteed waxay ugu baaqeen inay geli karin gudaha magaalada Luuq iyo guud ahaanba magaalooyinka kale ee gobolka Gado marka amarkaas ay dul dhigeen iyagoo markaa ka digaya khatar cusub oo nimanka ay wataan waxay leeyihiin waa niman la daba jooga waayahay haddii aynu aadno dhinaca kale magaalada Balad Xaawo oo maalmo ka hor halkaasi uu gaaray Cabdirashiid Janan oo dowladda federaalka ay u magacowday inuu yahay taliyaha NISA ee gobolka Gado waxa uu khudbad u jeediyay ciidamada halkaasi ku sugan ciidamadan waxa uu kala hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka sidoo kalena waxa uu halkaasi ka jeediyay hanjabaad culus oo u muuqato in gobolka Gado mar kale uu galo marxalad dagaal xilli Jubbaland iyo dowladda federaalka ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda waxaad ila daawataan hadalkii Cabdirashiid Janan uu ka jeediyay xerada ciidanka dowladda federaalka ay ku leedahay duleedka magaalada Balad Xaawo qorigan xabadda ku jirto iyo qoriga naftiisaba warshad samaysa Soomaaliya inaysan lahayn soo iibiyay maxay ciidanka halkan jooga ku sii dheerihiin waxay ku sii dheerihiin askariga xabar jooga saak ama Baydhabo joogo ka soo gudub ka Garbaharre joogo ee saak Balad Xaawo jooga waa kala duwan ka Garbaharre joogo diyaarad konton qaad ah oo xamuul ah ba in qalab loogu keeno suurtagal ah ka xamar joogana dekada alaab laga soo bixiyo baabuur saaran in loo keenaa suurtagal ah laakiin ka halkan jooga alaabta waxa aad wadataan waxa lagu keeno waa taqaanaa xabadda marka noocaas lagu keeno in la iska rido arintaas waxaan u maleynayaa in ay haddii dhig wax qaadanayso ay jirto wax badan isku celcelinay gudoomiyahan aad u mahadsan intaas kadib waa fasaxaynaa gudoomiyaha shaqa u taalo iyo tiimkiisa hawl kale oo shaqahan sii galaynaa waa tahay waxaan rajeynayaa inaad soo daawateen Cabdirashiid Janan iyo kelmadii uu ka jeediyay maanta xerada ciidanka ee dowladda federaalka ay ku leedahay duleedka magaalada Balad Xaawo waayahay markaana aynu aadno magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa ay la circiraysaa shirar xasaasi ah oo ay yeelanayaan madaxda mucaaradka ee halkaasi ku sugan guriga Sheekh Shariif ayaa waxa uu noqday xarunta ay isugu yimaadaan abaabulkan ay ka wadaan mucaaradka Muqdisho maalmihii la soo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada ay halkaas kula kulmayeen mucaaradka xilli ay ku dhawaaqeen badbaado qaran laba madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu maanta uu jeediyay kelmad ku saabsan isla markaana uu kaga hadlay xaaladda Muqdisho iyo guud ahaan wadanka xaaladda iyo sidoo kale jahwareerka siyaasadeed ee jiro isagoo hanjabaadii ugu dambeysayna markaasi jeediyay ila daawada muuqaalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne xasan inuu maanta ku fikiro inuu iska joogo oo 2027 ayaa xilkaygu dhamaanaya ana ku darsaday nin wax bartay oo mutacallim macallin soo ahay barashada ka soo shaqeeyay janabi wuxuu ogyahay madaxweynaha institution naftiisa wuxuu dari karaa conflict of interest dhici karto taas waxay keenaysaa deganaansho la'aan sababta loo doortay 4 sano kasta in ay isbedel oo doorashada wax ugu weyn deganaansho siyaasadeed dalka taasaa ku dhismi karta
nala weynaadaan iyo waxyaabaha yaryarka oo uusan nala weynaan dastuurka waa khasaaro waxaa sii dheer oo aanan ka malaysanin runtii madaxweynaha inuu hantida qaranka ku tasarrufo sida furshan uu gacmihiisa ku qaado oo uusan soo marin hanaan dowladnimo hantida dowladda haddii la gadaa waxaa la mariyaa saa ogtihiin guddi iibka qaranaa jira qasnada dowladday ku dhacdaa naado qaranaa jirta cidda kharashka ugu badan bixinaysa ayaa laga iibiyaa dadka la barakiciyana ciwaday leeyihin maxaa yeelay muwaadinku dowladda wuxuu ku leeyahay hooy u qalma wuxuu ku qorayaa dastuurka lacagtaas in haddana loo adeegsado waxaa nasiib darro ah doorasho been abuura magaalada muqdisho doorashooyinka ka dhacaya beenta ahay isqoristii waa la iskhasbay doorashadii waa la iskhasbay natiijada waa laga been sheegay waxaa sidaasoo kale nasiib darro ah baydhaba wixii ka dhacay madaxweynaha inta aan u tegayno oo aan la hadlayna waxaan dhahayna madaxweynuhu dalka sharciga ku hogaami raggaana maamul goboleedyada jooga wakhtigii waa ka dhammaaday doorashaha galaan haddii mid adiga aad jecesha oo jira inuu joogo taageer inuu soo noqdo mushkilo kuma qabno laakiin sharci darrayaysan ku joogin waxaad ogtihiin dadka ugu waaweynaa deegaankaas الله نحرسته بروفيسور جواري قدومي برلمان كهره شريف حسن قدومي مرسل يا وحلري البور كم له فكرتي يا علناي مدوحين حسن شا كدب من محاد عي نيكي وحاس وسمينا إني اسكو قبسان دورة شوي أو إذا حبطها لو قبح يمشي وحنسيب دها إذا ماذا قرنك والله توبر إني الشباب لدرران إلا هذي ولا مريي مالا آمن هين عشان تبر وهين نحك هين تي إلهي ينحرسي وليش أسير قبلها سكون قد بيني خطر وين العب حوقالا ضد أن الله قبصي قاديدا لقاتي قاديدا لقوي وما بعني وحلو وحكر النبي يسفهم يدورشان اسمه يقول إن يقول قد هذه نسيب بروا هربا يدبو وافرح حيث هذا والذين كدروا قاعدوا في عدب سنين لكن ما أنت ليش بتشوفها ما أنت وحتاجيهم ما اللي سكت سناي مسؤول لك حناي إلا أن ذلك النظام كفدرال كوحلاقو ترجع قلق استبان نظام كذا صوت لسته بس الصوت دورته فدرال كذا نلسكوي ماذا لو ترجع كرسوني ذا وحنا ودعايان سراد السوق كرسوني ذا ضد كرسون مالد ولا حيسة إن الدولة لماذا اسكو كرسون هذا كدبنا إنه أقول اسمها هذه الدولة لماذا ونقول هذه الحاجة كستركي كله وزير هذا هي هذه كلا هي هذه أمن إن النور اسمان وإن نقدر هي هذا أوضل لنا وسقفنا خيرات دريمين